أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أي الله نوشة إن مسلم أو الصومالية لكن ماشي جوجنو حجر 40 كيلومتر وأبو قناي إن أضيع الدادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر أركاس ويا جماعة هالكي كتير حقا يضل كيوان كيوان محاولت ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج ويا نقبل حيا بالمال والنفس وفيزا وطن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانينك جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تانو مسكيت حد ما تقابل حد معلومة كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها واني مقبولي ذلك الصوماليا وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينا صوماليا اسلام نمدا نصحنا وموقته صوما افكا صومالي وحسين يا هي نمري شو نوي ميد مالنتي دمبه با سو دhoweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas warmarkii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood ee dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadaydu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda ay niidhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tukaday gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummada khayr u rajaynayo ummada wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qaylino ku badbaadaynayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la inaga dalbo inaan diinta u baxno aan baxayna wada istunfirtum fanfiru bu nabigu